maanta oo ay tahay maalin talaada ah bishuna ku beegan tahay 8 bisha koowaad 2019 waxaan hambalyaha halkan uga direynaa madaxweynaha dawladda Puntland ee 5 sano ee soo socota Dr. Siciid Cabdullaahi Dani waxaan leenahay guul iyo gobonnimo maanta wadanku wuxuu gaaray horumar cadaalad sinaan marka waxaan leenahay guulaysta waan leenahay reer Puntland oo kulligiin guulaysta hadda waxa dhacaya isbedel saacadan wixii ka dambeeya qaabkii aanu dhaqmi jirnay ee 66 kacod waa laga tagayaa waxaana loo gudbayaa hal qof iyo hal cod baa loo gudbayaa insha Allah guul iyo gobonnimo magacay warso Axmed Shirwac weeye gaashaan le warso Axmed Shirwac maanta waxa weeye Soomaalidii midowday saabkii baxyo samaatay Soomaalidii midowday saabkii baxyo samaatay madaxweynaha gul warahmatullaah maanta farxadeeda ma soo koobi karo laakiin waxaan u sheegayaa guusha madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani u soo hoyatay waa guul u soo hoyatay qof walba oo reer Puntland waa sumcad u soo hoyatay qof walba reer Puntland waxaan ka sugaynaa horumar iyo baraaro ilaahay idankiisa guusha dhacdana samada ka sugnaatay waa garasho rabbi ilaahna waa oo mahadnaqaynaa qof walba reer Puntland meel kasta aad joogto niyadaada ilaahay waa ku rumeeyay baarlamaankana waa mahadnaqaynaa alxamdulillaah wa barakaatuh macay waa maxamed caana jaamac diiriye waxaan ku faraxsanahay doorashada maanta dhacday doorashadaas si cadaalad ah oo sinaano oo wanaagsan oo sharaf leh ku soo dhamaatay aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan dareemaynaa isbedel dhab ah aad iyo aad shacabka Puntland baa laga dareemayaa waxaan ku faraxsanahay in aad iyo aad shucuurteedu kacsan tahay waxaan leenahay guul raxmatullaahi wa barakaatuh waa mujaahid Umar Siciid Kaashuwito oo muddo soo jihaadayay Siciid Cabdullaahi Dani guushiisa waxay dan ugu jirtay dhammaan ummadda reer Puntland ilaahay baa ku badbaadinaya waxaan Siciid kula dardaarmaynaa ummadda reer Puntland inuu u shaqeeyo horumarkooda ka shaqeeyo midnimadooda ka shaqeeyo xiriirka federaalka ka shaqeeyo amniga Puntland ka shaqeeyo waxaan leenahay ummadda reer Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waa shakhsi u siman dhammaan ummadda reer Puntland waxaanu ku faraxsanahay haddaan nahay tiimka Dani ama tiimka reer Puntland haddaan nahay guusha Siciid Cabdullaahi Dani waxaan leenahay guul baan leenahay raxmaan raxiim alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waa maalin weyn waxay u tahay dhammaan shacabweynaha reer Puntland waxay u tahay dhammaan waxa weeye shacabweynaha Soomaaliyeed oo dhan baarlamaanka Puntland waxay maanta sameeyeen jooskooda ugu fiicnaa waxay u dooreen waxa weeye Puntland ninkii ugu macquulsanaa nimanka meesha tartamayay waxaan u rajaynayaa waxa weeye waan u duceynaynaa xilka waxa weeye Ilaahay uu surka u suray waan ugu hambalyeynaa waxaan rajaynayaa waxa weeye mid taariikhdu xusi doonto inuu noqdo insha Allah magacaygu waa Barkhad Muuse waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub Cabdullaahi Siciid Dani daktarka waxa weeye madaxweynaha cusub waa soo dhaweynaynaa waana u hambalyeynaynaa dalkuna wuxuu galay isbedel loo baahnaa waqtigeedii waxa weeye waxaanu ka rajaynaynaa guul iyo gobonnimo iyo midnimo Soomaaliyeed waanu soo dhaweynaynaa madaxweyne soo dhawow shaqaan Ismaaciil Balaag aad baan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha Dr. Siciid Cabdullaahi Dani waxaan leeyahay guul maanta shucuurteeda lama soo koobi karo aad iyo aad baan faraxsanahay assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Saciid Muuse waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha dawladda Puntland ee ku guuleystay xilka madaxweynenimo Siciid Cabdullaahi Dani waxaan leeyahay noqonkii dalka iyo dadka anfacaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto anigu magacaygu yahay waa salaamaya Maxamed Ismaan Maxamed oo ku hadlaya afkayga dhalinyaradaba waxaan aad ugu hambalyeynayaa xildhibaanada baarlamaanka sharafta mudan oo waxa weeye u jeedaan maanta hiilka ay u sameeyeen dhammaan ummadda reer Puntland aad baan ugu hambalyeynaynaa madaxweynahana waa u hambalyeynaynaa barakaatu waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub Siciid Cabdullaahi Dani hambalyo ayaan leeyahay Allah ku garab galo xilka uu qaaday xildhibaanadana waa uga mahadcelinayaa dadaalka ay sameeyeen isbedelka ma sha Allah waa soo dhaweynaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Ismaaciil Allahu akbar baan leeyahay Allahu akbar ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa naguuleeyay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Danina waa u hambalyeynayna tiimkii shaqada soo qabtay sidoo kale iyagana waa u hambalyeynayna dhammaan shacabweynaha reer Puntland waa wada guuleysteen madaxweynahana insha Allah ta'aala Siciid Cabdullaahi Dani waxaan ka rajaynaynaa ballanqaadyadii uu sameeyay oo dhan inuu fuliyo mainly waliba inuu wax ka qabto amniga mar labaad waa u hambalyeynaya madaxweynaha sidoo kale shacabka reer Puntland waa u hambalyeynaya waxaan kaloo u hambalyeynayaa xildhibaanada isbedelka ka shaqeeyay oo iyaga la'aantood aan maanta waxba dhicin marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala bismillaahi raxmaanir raxiim magacaygu waa Axmed Haadi Sheekh Umar Xasan
أحمد هذا الشغل عمر حسمي مقعيو أنا وكهذا يا مقع الرياضة بنتلان وحن أوهم بريان يا مركز كوباد إلهي كسكو مدحوينها دولة بنتلان سعيد عبد الله دني مركز الله بعض أوهم بريان يا xildhibaanada cusub ee dawladda Puntland oo ugu horeeya gudoomiyaha baarlamaanka mudane Dhawa Daareed inta kadib waxaan ka codsanayaa madaxweynaha dawladda Puntland inuu wax ka qabto ballanqaadyadii uu fuliyay ugu horeysa amniga caafimaadka iyo waxbarashada aadana ma shinta salaam alaykum warahmatullahi bismillaahir rahmaanir rahiim aniga Barre Cabdiraxmaan Ilaaq waxaan u baleenayaa madaxweynaha cusub ee Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani guul baan leeyahay Puntland aadaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Dani ballanqaadyadu wax qadana inuu fulin doono guul بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركور وحاهم بليو دريا مدحوينها بوتلان دكتور سعيد عبد الله الدني ومانتا سر رسميها لو دورتي وحلبانada u doorteen inuu noqdo madaxweynaha 5 sano soo socday hogaaminaya Puntland waxaan leeyahay ilaahay xilkan ku fududeeyo guushaada aad iyo farxadna ugu tahay mana qiyaasi karna maanta sida wacan oo lagu farxay markii aad guuleysatay guul wacan ayaan ku rajeynayaa waqtiyan iyo waqtiyo badan inaad si fiican Puntland u hogaamin doonto oo horumar fiican aad gaarsiin doonto jidda weyn ee laga qabana waa dabaaldega aad iyo aad u maasantiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay guusha wacan oo gaaray madaxweynaha Puntland ee maanta la doortay Dr. Saciid Cabdullaahi Dani waxaan u hambalyeeyaa dhammaan mudanayaasha baarlamaanka sida wacan ay codka u siiyeen waxaan rajeynayaa in horumar fiican oo gaarsiin doono Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani waa nin aad loogu rajo weynaa waa nin aad iyo aad wax ugu soo qabtay dalka qaybo badan oo kamid ah waxbarashada caafimaadka arrimaha bulshada waxaan u rajeynayaa mustaqbal wanaagsan maanta guushiisa oo gaaray aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan alla ugu baryayaa xilka cusub oo maanta ku guuleystay in oo alla u fududeeyo aad ay u maasantiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha cusub ee Puntland maanta yeelatay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa aad baan ugu rajo weynayn garan labada kumada qoslisa waa la yiri oo ninka la yiraahdo Asad isaguna hadii la ku run yahay aad iyo aad baan ugu hambalyeenayaa waxaan u rajaynayaa Puntland isbedel iyo dawlad rasmi ah oo hana qaada oo insha Allah hadii la ku run dhan walba ka dhisan oo burburkii iyo dhan walba ka hana qaada insha Allah aad iyo aad baan u hambalyeenayaa madaxweynaha cusub بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Ridwaan Cali Geele aad ba maanta u faraxsanahay farxadeeda ma soo koobi karo codkayga ka dareemaysaa sidoo u xirmay waxaan taageero weyn waa Saciid Cabdullaahi Dani aad baan ugu faraxsanahay inuu soo guuleysto maanta oo noqdo madaxweynaha 5 sano soo socotay dawladda Puntland insha Allah khayr badan baan u rajeynaynaa inuu xilkaasi noo sii hayo 5 sano soo socota hadii Ilaahay idmo farxadeeda maanta ma qiyaasi karo waxaan ku qiyaas ma garan karo aad baan ugu faraxsanahay Saciid Cabdullaahi Dani hambaliyo kun jeer hambaliyo بسم الله الرحمن الرحيم waxaan hambalyo u direeyaa mudane madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo runtii aan ahaa shalay ugu dambeysay 9 saac bar aan u hambaliyay waxaan leeyahay hambalyo waxa farxad iyo shalay 9 saac bar aan u hambaliyay madaxweynaha Puntland inuu yahay ilaahayna riyadeedu rumeeyay intaas ayaa farxad igu filan rahmatullahi wa barakaatuh waxaan halkan hambalyo uga direeyaa Saciid Cabdullaahi Dani oo ah maanta madaxweynaha Puntland aad baan u faraxsanaa waxaan leenahay guul iyo gobonimo in badan baan u faraxsanaa waan kuna faraxsanaa riyadeedina waa i rumeeday guul iyo gobonimo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أنيقو محمد إسماعيل صلاة كانت ترسن قولها ديغان كدقمة قردو كان ميدا معلمين تدكسية سرية بوتلان وعن همبليو ديران أدريا مدحوينها الله دورتي مدانة سعيد عبد الله الدني وعن لأنها هيرير بوتلان قول هرمر بانو رجينا دمان أمدا سوماليات gaarhaan umada Puntland waxaan filaynaa in la gaari doono insha Allah horumarka la taabanayay waxaan leenahay mudane Dani waa madaxweynihii shacabka hore soo alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa asxaabihi ajmaciin anigoo ku hadlaya magaca gobolka Karkaar bulshada ku nool dhamaanteed waxaan hambaliyo iyo bogaadin iyo duco u direynaa madaxweynaha cusub ee Puntland mudane Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo ah madaxweynihii lixaad ee Puntland
waxaanu leenahay mudane madaxweyne ku soo dhawow Puntland ku soo dhawow gobolada reer Puntland ku soo dhawow bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer Puntland oo u baahan isbedel cusub iyo in si fiican loola jaan qaado xaaladda ay bulshadu maanta ku sugan tahay mudane madaxweyne bulshada reer Puntland dabeecad ay leedahay baa jirta madaxweynaha sanadka hore waana soo dhawaysaa waana qiimaysaa sanadka ugu dambeeyana waxay ku qiimaysaa waxqabadkiisa waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan noqoto kii aan ku fashilmin barnaamijka uu golaha baarlamaanka hortooda ka jeediyey ummadda reer Puntlandna ay aad u soo dhawaysay ula dhacday waxaanu leenahay xilka culus waa ku ugu ducaynaynaa ilaahay waxaanu ka baranaynaa inaad noqoto kii ka fogsa ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay Puntland waa cusub baa u beriyay waxaanu idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan mas'uuliyiinta cusub hadday noqoto heer golaha heer dejinta iyo hadday noqoto golaha xukuumadda kuwa soo socda iyo kuwa hadda la doortay intaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay waa cusub baa noo beriyay ilaahay haynu ku guuleeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bilaaba bismillaahi raxmaani raxiim waxaan anigoo ah ciise maxamuud cumar kana mid ah shaqaalaha madaxtooyada gaar ahaan agaasimaha waaxda shaqadii shaqaalaha waxaan hambalyo kale iyo laba u diraya madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Dani oo ah nin aqoon-yahan ah waa nin siyaasi ah waa nin waxa weeye bulshada saameyn weyn ku leh waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo xilka culus ee lagu igmaday inuu ilaahay kuu fududeeyo ayaan kugu ducaynaynaa mas'uuliyad culus baa qaaday waxaan rajaynaynaa mas'uuliyadda lagu dhiibay siday tahay inaad uga soo baxdo in dalkii dadku ku jecel yahay in wanaag lagugu bartay wanaaggii lagugu bartay inaad dalka ku xukunto hambalyo kale iyo laabaan kuu soo diraya hambalyo bismillaahi raxmaani raxiim hambalyo dhammaan dadweynaha reer Puntland anigoo ku hadlaya afka tiim Dani oo hadda isu bedelay tiim Puntland ama isu bedelay xisbi siyaasadeedka Tayeen iyo Tigsi waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland waxaan leeyahay waa in wada guulaysanay ma ayna kala guulaysan waxaanu dooranaa hogaamiye dhammaanteen inuu wada qancino ku wada kalsoonahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa dhammaan shacabka reer Puntland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin taariikhi ah ee dhacday doorashadii lixaad ee Puntland ma doorashadii shanaad oo ay ku dooranaysay madaxweynihii lixaad waxaan u hambaleynayaa madaxweynaha cusub ee Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani hambalyo waa u duceynaynaa madaxweynaha cusub sidoo kale waxaan u hambaleynayaa shacabweynaha reer Puntland sidoo kale waxaan u hambaleynayaa musharaxiintii kale tartanka ka qayb galay sida uu can u dhacay sidoo kale guddigii baarlamaanka ee qabanqaabinaya doorashada waxay ahayd doorasho muujisay bisaylka siyaasadeed ee Puntland aad iyo aadna u rajagelinaysa shacabweynaha Puntland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inay noqoto tusaale fiican doorashadaas mustaqbalkana aynu ku tilaabsanno xisbiyada badan siyaasadda Puntland ay noqoto siyaasad ay ka qayb gali karaan dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada aysan kaliya noqon siyaasad u xiran mataqaanaa qaabka qabiiliga insha Allah waxaan rajaynaynaa ugu duceynaynaa madaxweynaha cusub iyo xukuumaddu dhisi doono inay ka shaqeeyaan nidaamkaas waxaan rajaynaynaa sidoo kale madaxweynaha inuu ka shaqeeyo midnimada iyo isu soo celinta Puntland ee gobolada ka maqan iyo gobolada hadda ka tirsan inuu mideeyo sidoo kale inuu mideeyo shucubta Puntland iyo guud ahaan Soomaaliyeed hambalyo aanu leenahay duca badan baan u direynaa madaxweynaha cusub iyo madaxda kale la doortay waa salaamaya shacabweynaha Puntland kuwa gudaha iyo kuwa dibadda waa mahadsantiin bismillaahi raxmaani raxiim maanta waa maalin taariikhiya waxaan farxad leh waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha cusub oo loo doortay Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryeynaa in uu u fududeeyo xilka culayska badan ee uu maanta ummadda Puntland dadka iyo dalka reer Puntland iyo deegaanka uu qaaday rabbiga subxaanahu wa tacaala waxaan u rajaynayaa inuu ilaahay ku guuleeyo sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa dhammaan musharaxiintii kaleeto oo maaragtay la tartamayay madaxweynaha sida wanaagsan oo ay u aqbaleen natiijada waxaan
dhammaan u hambalyeynayaa shacabka reer Puntland meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay guusha maanta idin soo hoyatay iyo isbeddelka waxa la idinka doonayaa maamulka cusub inaad la shaqaysaan dhammaantiin guulaysta innagoo dhanna waxaan leeyahay ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa salaamayaa madaxweynaha xilka uu qaaday nin xil qaad baa la yiri amaanada lagu dhiibay inaad noo adkaysid baan rabnaa sida ay tahay inaad uga soo baxdid baa la rabaa waliba qoladeeda qaas ahaan qoladeeda reer miyiga waa dulmannahay boqolkiiba 90 waa dulmannahay wax noo qabto wali ma aanan arag laa iyo Puntland si loo aasaasay cidana nagama warqabto xoolo iyo dad iyo dunyo midna nagama warqabo waxbarasho ma haysano caafimaad xoolaad ma haysano mid dad ma haysano waan dulmannahay madaxweyne waxaan ka codsanaynaa dadka reer miyiga inaad awood saarid waxaana ku nool dadku ku nool yahay waa xoolahana haddii aan la dhaqaalaysan warshado kale ma lihini meelo kale ma lihini meel kale aynu cararna ma helin waxaanu ka rabnaa marka inaad awoodda saadhi dhaqaalaha dalka waxaan dadweynaha Puntland ka codsanayaa inay la shaqeeyaan madaxweynaha madaxweyne eed waayimaysin nin xil qaad eed baa eed qaad waa lagu eedeynayaa dhaliil waa ku imaanayaan laakiin waxa la rabaa inaad wax walba u tanaasugtid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay mudane madaxweyne guusha maanta qaaday iyo xilkaa qaaday allaha kuu fududeeyo hambalyo waa maalin taariikhiya waa 2009 ilaahay ha kuu fududeeyo ilaahay ha kugu guuleeyo waxaan kaa rabnaa wixii aan noo ballan qaaday oo ugu horeyso amniga dhaqaalaha dowladda Soomaaliya oo aad dowladda Puntland ama gobolada aad ku xirtid waxaanu kaa rabnaa amnigii faraha waa ka baxay amnigii aad soo celisid waxaanu kaa rabnaa dhaqaalihii aad soo celisid waxaanu kaa rabnaa sida quruxda leh oo aad u qaaday iraad Puntland ku hanatid ilaahay ha kugu guuleeyo nabaadkii waa guuray dalkii waa baaba'ay waxaanu kaa rabnaa inaad dalka iyo dadka isku soo celisid dowladda dhexe ku xirtid waxaanu kaa rabnaa amniga ugu horeyn amniga inaad gacanta ku dhigtid baanu kaa rabnaa allaha kugu guuleeyo guul iyo hambalyo assalaamu calaykum anigoo ah maxamed khaliif yuusuf halkan waxaan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne waxaan ku leeyahay ku soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga waan ku doonaynaa waan ku baahnayn madaxweynaha waxa noqon doonta insha Allah in dalka iyo ciidamada iyo horumarka iyo waxba ka shaqeeya insha Allah Allah kula garab garo xilka mas'uuliyadda Ilaahay ku saaray annaguna waa ku soo dhaweynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baa ku soo dhaweynaa mudane Siciid Cabdullaahi Dani guul بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بمهاد إسكاله magacay waa maxamed cabdi xirse maxamed suu waxaan u hambalyeeynaa maanta doorashada quruxda badneed ee ka dhacday Puntland una ku guuleystay Dr. Siciid Cabdullaahi Maxamed Dani oo maanta ku guuleystay codka xildhibaannimada doorashada ka dhacday Puntland baa u hambalyeeynaa dhammaan waxaan u hambalyeeynaa dhammaan reer Puntland meel kasta ay joogaan dal iyo dibad waxaan kaloo sidoo kale u hambalyeeynaa oo leeyahay Allah inuu shafro gudoomiye maxaan ku iraahdaa baarlamaanka Puntland oo doortay madaxweynaha iyo maxaan ku iraahdaa sida sharafta leh ay u dhaceen waxaan kaloo hambalyeeynaa ninka la yiraahdo General Asad ninka dhalinyarada oo dadaalay ma sha Allah aad baan u mahadsantahay waan leenahay sidii sharafta leh oo u dhacday doorashadu isagana waxaan leenahay insha Allah taala waxa way waa wada guuleysana guul baa gaadhay waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi